Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddii aad tahay shakhsi dhallinyaro ah una dhexeeya da'da 20 sano ilaa 30 sano, waxaan kaa codsanayaa inaad maantay maqalkaaga ii amaahiso. Waxaan rabaa inaan kaa wacyigeliyo god madow oo aad ku socoto haddii aadan ka istaaginna noloshaada burburinaayo. Runtii Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad furfuran oo shaqo badan meel walba oo ay dunida ka joogaan. Iyadoo ay sidaas tahay, haddana lama soconno musiibooyinka dunidan ku soo kordhay. Wixii ka dambeeyay shagaashamaadkii, waxaa dunidan soo galay wax la yidhaahdo internet. Adduunweynaha oo dhan ayaa soo dhoweeyey aaladdan internetka, maadaama wakhtigaas dadku u arkaayeen inuu qayb weyn ka qaadanayo ilbaxnimada iyo horumarrada dunidan ka soconaya. Runtiina wax weyn ayuu ka beddelay dunida internetku, oo waxaad u jeeddaa horumarka maanta ka jira dunidan. Haddii ay noqoto dhanka social mediaha, haddii ay tahay dhanka ganacsiga, iyo haddii ay tahay dhanka quwadaha maanta la iskugu faanayo. Maalinba maalinta ka dambaysa ayaa horumar laga sii gaarayaa. Iyadoo ay sidaas tahay ayuu haddana afaf badan oo jarriimo ah leeyahay internetku, maadaama ay soo baxeen aalado badan oo lagu magacaabo social media. Dad badan oo dunida ku nool waxay ogaadeen saamaynta xun ee uu leeyahay social mediaha. Iyadoo ay sidaas tahay ayay haddana sii kala daran yihiin. Saldhigga aan rabno inaan maanta ka duulno ayaa wuxuu yahay mid ka mida social mediaha, weliba kuwooda ugu daran uguna saamaynta daran. Haddii aadan ka istaaginna isticmaalidiisa kugu ridaayo god madow oo uusan dhawaaqaaga maqlayn qof dunidan ku nool. Haddii aadan isticmaalin, waxaan ku leeyahay hambalyo, waxaad ka badbaaday mid ka mid ah musiibooyinka dunida ugu xun. TikTok waa mid ka mid ah applicationada dunida ugu xun. TikTok waa mid ka mid ah jarriimooyinka maskaxda dega. TikTok waa mid ka mid ah dilaaga hal abuurka. TikTok waa mid ay dadyow fara badan oo dunida daafaheeda ku nool murugtii ay ka qaadeen ay la daala dhacayaan. TikTok waa dilaaga kobaca garaadka shakhsiga dhallinyarada ah. Haddaba wiil yahow ama gabar yahay, haddii aad isticmaasho aaladdan oo weliba wakhtigaaga qaaliga ah, wakhtigaaga luulka ah aad ku lumiso, waxaan ku odhan lahaa waxaa tahay mid ka mid ah shakhsiyaadka dunida ugu nasiibka xun. Waxaa tahay qof noloshiisii isagu god ku sii wada. Waxaa tahay qof waayey wax la taliya. Ha u qaadanin inaan ku aflagaadaynaayo, waayo waxaan ahay shakhsi Soomaali ah oo ay kala dhexayso walaalnimo. Sidoo kale waxaa naga dhexeeya diin, sidoo kale waxaa naga dhexeeya midab, oo waxaan nahay laba qof oo Soomaali ah. Dhibkaagu waa dhibkayga. Ma garanaysaa waxa uu yahay TikTok? Ma garanaysaa ereygaas micnihiisa? Waa erey Shiineys ah, macnihiisuna yahay dhaansi, qoobka ciyaar. Applicationkan waxaa lagu aas-aasay waddankaasi China. Waxaa laga yaabaa inaad taqaanid aaladdan magaceeda, laakiinse aadan aqoonin aas-aasaha barnaamijkan halista ah. Ninkan hortaada ka muuqda waxaa la yidhaahdaa ByteDance, waana mulkiilaha shirkaddan TikTok. Ninkan ayaa markiisii hore samayn jiray aalado kale oo yaryar, kuwaasoo lagu tabiyo wararka ka baxa waddankaasi China. Sanadku markuu ahaa 2016 ayuu ByteDance aas-aasay aaladdan TikTok. TikTok waxa kaliya uu qabto ayaa waxay tahay inuu qofku iska soo duubo fiidiyow gaaraya ugu badnaan 15 sekin, isagoo dul saaran karo waxa uu rabo, haddii ay noqoto music iyo haddii ay noqoto waxyaalo kaleba. TikTok waxa uu sanad gudihiisa ku gaaray 150 waddan oo ka mid ah dunida. Bil kastana waxaa degsata barnaamijkan 500 oo milyan oo ruux. Shirkad la yidhaahdo Xinhua oo laga leeyahay dalkaasi China, baaritaanna ku samaysa arrimaha suuqa, ayaa shaacisay aaladdan TikTok 3 bilood ee ugu horreysay oo la saaro App Store-ka in ay degsadeen barnaamijkan 48 milyan oo qof. Waxa uuna ka mid noqday TikTok dabayaaqadii 2017 applicationadii ugu sarreeyay dunida oo soo xareeyay lacagta ugu badan. Shirkaddan TikTok ayaa hadda waxa ay ka mid tahay shirkadaha tiknoolajiyadda ee gaarka loo leeyahay kuwa ugu qiimaha sarreeya waqti xaadirkan dunida. ByteDance oo ah mulkiilaha shirkaddan ayaa wuxuu yidhi waxaan rabnaa inaan ciribta dhigno xarunna ku yeelanno magaalo madax kasta oo dunida ka mid ah. Xarumaha ugu waaweyn ee shirkaddan TikTok ayaa waxay ku yaaliin qaar ka mid ah magaalooyinka dunida ugu waaweyn sida Beijing, Los Angeles, London, Tokyo, Singapore, Jakarta oo ah caasimadda Indonesia, Moscow iyo Mumbai. Haddaba su'aasha ayaa waxay tahay walaal, maxay tahay saamaynta xun oo uu leeyahay TikTok oo ay dunidu ka qaylinayso? Waxaa jiro waddamo badan oo laga mamnuucay aaladdan isticmaalkeeda. Waxaa ku jira waddamo ay xarumo ku leedahay shirkaddan. Waxaa ka mid ah waddamadaas Hindiya, Bangladesh, Indonesia iyo waddamo kaloo fara badan.
dowladda Hindiya ayaa gebi ahaanba ka mamnuucday waddankeeda aaladdan TikTok markii ay aragtay in dhallinyaradii maskaxdooda ay dilayso aaladdan. Sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay arrimo la xiriira galmo iyo waxyaalo kaloo aad u foolxun sida qof isdilaaya. Kadib dowladda Hindiya waxay warqad cabasho ah u gudbisay shirkadaha Apple iyo Google oo ay ka codsatay in serfarka App Store-ka iyo Play Store-ka waddankaasi Hindiya laga saaro aaladdan TikTok. Google ayaa durbadiiba ka saartay Play Store-ka, halka Apple aysan weli ka saarin. Ilaa hadda waxaa dunida ka socota qayladhaan ka imaanaysa barnaamijkan. Haddaba walaal, waxaan la hadlayaa walaalkaygan Soomaaliga ah. Waxaa lagaa rabaa inaad su'aashan isweydiisid. Maxay kuu taraysaa inaad muuqaal 15 sakin ah oo aan waxba noloshaada ku soo kordhinayn aad maalin walba iska soo duubto? Mar aad hees isla nuxnuuxinayso iyo mar aad fiirinayso maxay dadku ka soo bixiyeen wixii aan soo dhigay? Noloshaadii iyo mustaqbalkaagii oo dhan inaad intaas ku soo koobto waa wax runtii ceeb kugu ah. TikTok waxa uu maskaxdii iyo habfikirkii ka qaaday kumanaan dhalinyaro ah oo daafaha dunida ku nool. Marka aad joogto marxaladda 20 jirka, waa marxaladda uu ninka ragga ahi calaamadsado waddadii mustaqbalkiisa. Waa waqtigii aad qaadi lahayd mas'uuliyadda naftaada. Waa waqtigii aad kala garan lahayd waxaan ma wax fiican baa mise waa wax xun. Waa waqtigii aad ku fikiri lahayd 5 sano ee soo socota. Xagee baan rabaa inaan gaaro? Maxaan rabaa inaan noloshayda ku soo kordhiyo? Maahan inaad hankaaga duuduubto. Maahan inaad guusha ka cabsato. Maahan inaad ka fikirto dadku maxay oranayaan haddii aan sameeyo waxaan. Maahan inay dib kuu celiyaan hadallada kaaga imaanaya dadka nolosha ka quustay oo raba inay dib adiga kuu dhigaan. Walaal, haddii aad tahay qofku imtixaanan isticmaalka aaladdan, jooji. Wuxuu dilayaa dadnimadaada. Waxaad ku weynaysaa farxaddaada. Waxaad noqonaysaa keliya qof u nool inuu qanciyo dadka kale. Waxaad noqonaysaa qof ka fikiraya maxaad u duubtaa dadka kale. Haddaba adigu isweydii, ma waxaad u shaqaysaa sidii aad dadka kale u qancin lahayd 24 saac? Ma waxaad ku dhex jiraysaa aalad uu soo saaray nin adiga oo kale ah oo aan waxba ku dheerayn? Aaway adiga wax soo saarkaagii? Mise adigu waxba ma soo saari karti oo waxaad tahay qof Afrikaana oo madow ah oo weliba Soomaali ka sii ah, oo waxaad aaminsan tahay inay gaaladu naga caqli badan yihiin oo iyaga kaliya ay wax soo saari karaan? Ma sidaasaad aaminsan tahay? Runtii middaasi waa qiyaali iyo wax aad adigu iska dhaadhicisay. Qof walba oo dunidan ku nool Ilaahay wuxuu siiyay awood uu wax walba ku qabsan karo, kana mid noqon karo dadyowga dunidan wax ka bedelay. Jooji isticmaalka TikTok. Waa sanduuqa halaagga. Waa qol yar oo fikirkaaga dilayo iyo inaad noqoto qof hami sare leh. Maanta wixii laga bilaabo u istaag sidii aad u dhisan lahayd nolol aad u qurux badan. U istaag sidii aad waddankaaga iyo dadkaaga wax ugu qaban lahayd. U istaag sidii aad Ilaahay u raali gelin lahayd. U istaag sidii aad u noqon lahayd qof guulaystay adduun iyo aakhiraba. Jooji isticmaalka TikTok. waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.